tidaan sameeyey waxaana rajaynayaa sidii gudoomiyaha uu sheegay in sanad walbo December-ka waqtigan camal in la isku yeero siyaasiyiinta iyo dadweynaha si loo xisaabtamo aniga marka Yarba aan ku laabanayaa waxaan ahay waalidiinta midlaaya Yarba oo ka gooban yurista ilaa akala horta runta caafimaadku aad baa loo fiican yahay Yarba maanta qoyska Soomaaliyeed ab hooyo wiil iyo gabar waa la shaqeeyaa waxaa jira dhalinyarada shaqada sida uu sheegay waxbarashada boqolkii 50% ayaa rinka bi ka aada jaamacad looma haysto dugsiyada hoose dhexe 80 ilaa 100 baabar moosa marka natiijka aad buu fiican yahay laakiin sida Leila uu sheegtay waxa jira walwal jilaal xoog la galaya dulqaad baa loo baahan yahay sabar inta aan haysanay in dib ugu dhicin taasna waxa loo baahan yahay sabar iyo dulqaad dagaal badan baa la gali doonaa dhibaato badan baa imaanaya waana arkaynaa xagga dhaqaalaha iska liidata meel walba iska soo dagaal iska siinay marka waxaan leeyahay dadaal haddaan soo laabto Yarba xagga siyaasiyiinta Wester Urto waxaa jira labo leedamood oo ristogan ah labo waxaa la gaaray waqtigii aan mid ka mid ah anaga lahaan lahayn waxaan ugu dhacday laba jeer ba wiilal dollarna laga keenay midna akala liiso dajiyay usaa qaatay labadii kun iyo haddana 22 wiil kala la keenay asagana hoos baa liiso dajiyay xisbi kale ah ayaga qaatay xaqna uma lahayn annaga xaq u lahayn waqtii hore waan ugu dhacday hadda iyo wixii ka dambeeya waa in la tabaabushaysta waxaan aad u mahadcelinahay Leila oo xisbigeeda tusaaleysay inay number 1 iyo tabori ka noqoto waxaan rajaynayaa xisbiyada aad idinka midleysaan inaad lambarada sax ku soo baxdaan markaas waa in codeynayna si loo galo baarlamaanka taas hadda xaq uga baxo waxaan u laabanayaa Communal for Marketing Stockholm aad iyo aad ku % markii lagu leeyahay 7 qofood 101 waa Stockholm Stad marka meeqay ka noqonayaan 7 waa 1% anagana beforkin ahaan ma dhiman marka guul weyn waay marka waxaan rabnaa maadaama guushaas weyn ay jirto Yarba waxaan heystaa 3 arrimood hadda waxaan heystaa koow wax la yiraahdo isku dar aniga aan u tilmaamay qudbad sireed wax la yiraahdo oo ah teensa iyo rinka bi in la isku daro waxaan aaminsanahay hadaan waalidnahay laba xaafadood tacbaana waaye in la isku daro waqtigan annagoo dhibaatooyin badan ka soo baxnay in qoorta la isku gariyo marabno laakiin aday noqonayso in la isku daro waxaan codsanay si korna u codsanayna hoosna u codsanayna idinkan mas'uul aad naga tihiin in la baaro consequence analysis wax la yiraahdo in la baaro maxaa faa'iido ahaan labo dadweynaha in dialogue lagu sameeyo la hadlo sababtoo ah xisbiyada aad idinka hadda maanta misleysaan oo majority-ga ah Stockholm Stad ma aaminsaneen waxaan doorashana kuma galeen idinka marka inaad qaadataan fikrad aad markii hore ka soo jeedeen inaad tirahdaan waa fiican tahay waxaan u aragnaa shaki weyn baa noogu jira marka waxaan idinka baryaynaa in kastoo go'aanka aad gaarteen aan ognahay waxaan rabnaa in baaritaan la sameeyo iyo dialogue waxaan rabaa wax kale waxaa jira etundar khutniyahana nawreeri waxaan u baahnahay Valera Bussar factory iyo waxaan oo la keenayaa ma soconayso marka waxaan u baahanahay sida walaashay ay sheegtay in si gaargaana aan isku aragno oo aad noo keentaan traffic qof kale waxa kale si taabatay hadda wax la yiraahdo lexial caawinaad waxbarashada dhalinyarada xaafadaheeni aad bay ugu hirgashay
markaan yaarba wareego ilaa 100 qofood baa u yimaada inay ilmahayna caawadaan oo xaafado kale ka yimaado ururiye ka tirsan yihiin waxa la sameeyay ururiye qalad sameeyay annaga ma ogolin qalad qofkii sameeyna sharciga la taagsanaya laakiin waxaan diidanahay in la cadaabo dadka dhan oo ururiyadii dhan la yiraahdo lacag ma la insiinaayo waxaa jira dad baa ku ciyaaray taasna waa qalad ما هاي دلك كلية دلك دنواي سكول فيركت كأيا وحي قارتي إن العاجيه كجوجان أوريدي تاسنا وحي كيني ساداوع عنيجو والد يعرورتنا ما دام ومضاس حقا قصير لسنا مركب وحصلنا هدي دولة دي أي جوجي سي سكول فيركت إن استقل استاد ومسؤول كا سكولاتك إن أيجا هوشاس أي حق نمر كودكتان وواحد سهلا waxaan ku soo qatimayaa labadan degmadii la isku daro annaga hadda gudoomiye waxaan leenahay degmada Tensta waa Rashid way Vensterka iskale intana waxa iskale social democracy elwirnin la dhahay waxa codsanaynaa olole in loo galo hadii la isku daro yaa gudoomiye noqonay anu waxaan aaminsanahay in annaga leenahay marka ma in warka la cadeey rabna annaga xaq u leh waa in arintaas olole aad noo gashaan inaan annaga leenahay